sida account looga furto JVZoo loona doorto alaab aad suuqayso. kanalka aad daawanayso waa Postpix, magacaygu waa Maxamed Charles. soo dhawaada asxaabta. JVZoo sida aad ciwaanka ka aragtaanba mowduuceenu maanta wuxuu ku saabsan yahay affiliate network la yiraahdo JVZoo. haddii aadan affiliate network waxay tahay aadan aqoon ama affiliate marketing oo dhan ba aadan fikrad ka haysan, fadlan soo daawo muuqaalka shaashada aad hadda ka aragto. muuqaal hore aan hadda ka hor sameeyay baa jira oo ka sheekaynaya affiliate ama suuqeyn gacan saareedka wax la yiraahdo. asaga soo daawo kadib u soo noqo muuqaalkan si aad adoo fahansan waxa ay affiliate marketing ay tahay aad ila socoto. waxa weeye aan gudagalno marka mowduuceena channelkan. waxa weeye waxaan uga sheekaynaa waxyaaladan ku xasuusiyo arrimaha la xiriira online businesska ayaan uga sheekaynaa iyo sida online-ka lacagta looga sameeyo. sidaa darteed haddii aad mowduucyada noocaas aad danayso, fadlan ugu soo biil oo subscribe saaro kanaalka si aad mowduucyada aad ula socoto aan soo gelino. okay asxaabta aan gudagalno mowduuceena. soo dhawaada mowduuceena aan toos u bilowno. mowduuceena sida account looga furto JVZoo loogana doorto alaab aad suuqayso. qodobka ugu horeeya aan eegno. subtopiga ugu horeeya waxa weeye sida JVZoo account looga furto. toos baan gelinaa marka JVZoo si aan account uga furno waxaan samaynaynaa. waxaad tagaysaa Google kadib waxaad qortaa JVZoo. bogga ugu horeeya oo www.jvzoo.com click si. bogga ugu horeeya marka aad soo doorato waxaad samaysaa boggaana ku soo baxaya. okay boggan marka waxaa loogu talagalay haddii aad account hore ku lahayd login baad samayn doontaa, laakiin annaga hadda waxaan oranaynaa start for free. hadda ayaan bilaabaynaa JVZoo. muuqaalka horena waa aragnay, laakiin hadda toos baan rabnaa account uga samayno. okay marka account ka samaysanayso JVZoo waxaad samaynaysaa, waxaad maraysaa stepskan. boggan koowaad waa register, kan hadda aan joogno. verify account, select a way to get paid iyo recommended tools. waxaas marka hadda waxaan joognaa hadda halkan. stepskaas marka maraysaa. stepskaas markuu ku dhamaado already waa ku diyaarsan yahay account waa ku diyaarsan yahay. okay full name baan halka ku buuxinayaa. waxaan qoranaynaa marka Axmed Ali Mohamed. intii ila socotay waxaa jira email aan samaynay. emailkan marka aan samaynay ayaa isticmaalaynaa. email aan ugu talagalay waxyaabahan tijaabooyinka oo idinkan aan ku tusaa ayaan isticmaalayaa. marka waxaan isticmaalay postpix@gmail.com. waa email aan ugu talagalay inaan ku bixiyo testiya waxyaabahan oo kale. marka magacaan laftiisana waa magacisna waxa way feega. Axmed Ali Maxamuud baan qoranay postpix@gmail.com. kadib waxaan ka shaqeynaa password. confirm password waxa way passwordka ku celi. halkan marka waxaad dooranaysaa waddanka. baan riixayaa marka Soomaaliya raba inaad doorto. okay Soomaaliya waa tan. marka sidii PayPal-kii oo kale ma aha tan, waa toos Soomaaliya toos baan u dooranaynaa. waana laga ogol yahay Soomaaliya adoo joogaad samaysan kartaa JVZoo. kadibna halkan aad tigaraynaysaa. si fiican u fiiri marka magacii baa soo geliyey, emailkii baa soo geliyey, password waddankii baan geliyey. kadib halkaan aad tigaraynaysaa. waxaa oranaysaa register. halkaana lagu keenayaa. halkaan markaad timaado waxaad joogtaa waxa lagu leeyahay marka inboxkaaga fiiri. email baa meesha ku qortay. marka emailka aad meesha ku qortay inboxkiisa fiiri.
email halkaan uu iga furan yahay aniga email kan soo kicinayaa uu ii diyaarsanaa refresh baan taabanayaa maadaama uu ii furnaa okay laba email baa ii soo dhacay kan activate karaynta ah aan taabanayaa waxaan riixayaa halkan si aan u activate gareeyo activate garayntu marka waxa weeye inaad emailkan qofkii qoray oo meesha geliyay inaad adiga tahay oo emailkan ay cadaysid marka sidaas wuxuu ku samaysmayba account sidaas ku samaysmayba JVZoo marka geli baa lagu yiri login samee oo kale baa laga dalbanaya hadda login soo samee kadib passwordkii aan samaystay baan gelinayaa okay okay waa ku dhex jirtaa marka waa kuu samaysan yahay waa kana Ahmed Ali Mohamed waa ku jirtaa waa login in okay markii aad verify garaynay emailkii aan soo galnay login ki samaynay halkaan aan la keenay waa samayna marka qodobkii ahaa inaan JVZoo samaysano aan ku noqono guide-keena waa maxay wax ku xiga موضوع ku xiga waxa weeye sida JVZoo loogu xiro PayPal inaan ku xirnaa rabnaa marka PayPal-ka aan samaysanay JVZoo-ga hadda cusub aan samaysanay si aan lacagta ay noogu soo dhacdo PayPal okay halkaan marka options badan baa ku jira optionskaas marka tirada badan waxba ku wareerin PayPal-kan ha aadin kan waxa loogu talagalay waa business waa dadka alaabta halkaan keensada annaga affiliate baan nahay laakiin alaab ma keensano sidaa darteed nama khusayso PayPal business nama khusayo annaga waxaan nahay qof shakhsi ah marka halkaan aadisa qaybtan oo ah JVZoo Pay halkaan marka waxa leedahay configure now halkaas riixaysa okay marka halkaan riixdo waxa ku soo baxaya boggaan laba waxa ku midig iyo bidix bay kala jiraan oo waxa ku soo baxaya Payoneer iyo payment rails okay marka qaybtan Payoneer ka iska daa isaga Payoneer ka marka la tusaya qaybtan ay maana saadiga payment rails Payoneer kaliftiisa Soomaaliya waa ka shaqeeya waana lagu xiri karaa laakiin hadda qaybtan ay tusaya muuqaalkan ka sameynaya Payoneer ka okay payment rails ka marka timaadid halkaan ima marka hoos ima waxaad riixdaa batoonkan ay ku qoran tahay add payout method kadib waxa lagu keenayaa boggaan marka lagu keeno waxa sameynaysaa waxaad hubinaysaa inay ku dooran tahay individual oo aad business aysan ku doornayn inay ku dooran tahay individual kadib magacii halkaan waa ku jira soo ma kuma jiro Maxamed magaca kale aan ugu jira Maxamed waxaan magaceena sax ah gelin Ahmed Ali last name kan geli Mohamed okay Ahmed Ali Mohamed emailka waa sax postpex@gmail.com waa kan ku soo galnay hadeer halkan waxa gelisaa marka taariikhda dhalatay baad gelinaysaa waxa ka soo qaadaa inaad dhalatay 9 bisha waxa ka soo qaadaa September maalintan waxa ka soo qaadaa 9 waddanka joogtid waa Soomaaliya hadday isku doornay dooro Soomaaliya address marka halkan iska geli su'aalaha kala Madiina iska geli Muqdisho joogtaa oo kale halkan 00 iska geli Muqdisho halkan qor gobolka Banaadir ku qor si ay isaga buuxbuuxi laakiin adiga addresskaaga caadiga iska geli meesha joogtid magaalada joogtid iyo addresska joogtid Soomaaliya marka addresskeedu waa iska xaafadaha iska qoraysa magacyadooda next marka boggaan marka next baa leedahay halkaan lagu keenayaa waxa lagu yiri waddanka aad dooratay Soomaaliya other payout method kale kama shaqeeyo okay waxa lagu yiri Soomaaliya kama shaqeeyo payout method kale oo aan ahayn PayPal baa waxa ku saaran sax marka annaguna waa inta rabnay PayPal baan haysanaa hadda method kale ma haysanaa okay
waxaa dhan marka halkaan ku qoran yihiin oo in PayPal fees ay kugu dhici doonto sidoo kale same day marka isla maalintaas ay lacagta ku heli doontid halkaan xogtaan iyaduna waa muhiim akhriso waxa lagu yiri PayPal paymentigu waxa uu maximumkiisu waa $500 ka badan halkii maalin kala ma bixi kartid oo maalintii $1,000 oo kale ama $502 ama $600 kala ma bixi kartid hal maalin gudaheed waa inaad maalin kale sugtaa maalin kale aana lacag kala dalbataa haddii lacagta intaa leeg kugu soo dhacdo marka hal maalin $500 baa ugu badan maximumkeeda 2% PayPal fee way qaadanayaan xogta marka waa muhiim okay marka PayPal baan doortay PayPal markaan doorto halkaan waxa ku qoraysaa marka PayPal addresskaaga okay PayPal addresskayga marka waxa weeye waa kaan sameynay PayPal kaan leenahay PayPal kaan inoo samaysan adiga iskale PayPal kaan isla muuqaal aan PayPal kan ku sameynay baa jira haddaad u baahan tahay soo daawo sida loo sameeyo PayPal awal baan waxa ku sameynay emailkan markuu inoo samaysnaa isagii baa gelinaysaa markaa sida u geliso waxa oranaysaa add done maxaa lagu yiri kugu xiran yahay postpix@gmail.com active PayPal-ka waa inoo xiran yahay marka lacagteena hadda waxay noogu soo dhacaysaa PayPal-keena sidaas aan ugu jirnaa meesha okay ciwaanka ku xiga waxaa la yiri sida alaab looga doorto aad suuqayso alaab aad suuqayso sida aad uga dooran lahayd okay marka alaab aad suuqayno si aan uga doorano halkaan horta products baa tagaysaa products markaad tagtid waxaad tagaysaa top sellers macnaha maalin kasta waxaa jirta alaab suuqa ku jirta ama alaab maalmahan aad loo gadanayay number 1 rankiiba marka kala jira marka alaabtaana hadda ugu horeysa maanta alaabtaan baa suuqa haysata JVZoo oo dadka waxa weeye affiliate-ka ama dadka wax suuqeeya alaabtaan aad u gadayeen ama si kale hadaan u yiraahdo shabakadan JVZoo la yiraahdo alaabta ugu iibka badan la iibsaday maanta iyo maalmahanba waa alaabtaan weey si marka alaabtaan u aragtid waxaad riixaysaa xaggan affiliate details xogteeda la xariirta dadka suuqeynaya qaabka ay ula macaamilayaan marka alaabta sales page-keedii ma aha waa meesha annaga nala kuna macaamili lahaa bogayga okay waatan marka halkaan lagu keenay halkaan marka lagu keeno waxa halka ku qoran alaabta qiimaheedii waa $67 commission-keeda waa $50 marka $67 boqolkiiba 50 annaga iskale alaabta haddii aan hal seel keeno hal iib haddaan keeno intaan link ka qaadano halkaan annaga iskale boqolkiiba 50 oo lacag adigu 3.5 oo kale ah baa leedahay $33 halkii seel okay vendor-ka waxa weeye qolada alaabta soo saartay waa labadan nin Jay Sharma iyo Rahul Gupta waa niman Hindiya softwares baa badan alaabta halka ku jirta waa softwares okay halka marka waxa ka arkaysaa profile-kooda dadkan alaab soo saaray in dad waxa weeye legit ay yihiin oo mataqaana la isku halayn karo ilaa 2014 meeshaan joogeen oo JVZoo ay alaab ku iibinayeen 34,000 ilaa 34,500 plus oo iib bay sameeyeen waxa weeye halkaan marka xogta dhan ku qoranta waa dad macnaha aad waxa weeye active u ah oo waxa weeye la isku halayn karo weeye marka waxa sameynaysaa halkaan waxa ku qoraysaa inaad codsato wixii aad oran lahayd marka alaabta JVZoo inaad codsatid oo ma ahana link ma heli kartid marka waa codsanaysaa marka waxa ku qoraysaa halkaan waxa oran kartaa hello magacooda oo kala iska qora hello vendor ka magaciisa qoraysaa hello Jay Sharma iyo Rahul Gupta magacyadooda baan qoray Soomaa waxaa leedahay iyo oklaada let me promote
your product, my 100k email list waxaan haystaa 100k ah oo 100,000 oo qof baa waxay igu jiraan email marketingka ama listiga dadka aan haysto aan emailada u diri karo waa 100,000 oo qof marka alaabtiina baan waxaan doonayaa inaan dadkaas ku promote gareeyo inta kaliya ugu filan inaan dhaado kadib waxa leedahay marka waxaan waxa weyn instruction-kiina waa ku qanacsanahay robotna ma ihi kadib request approval marka in aqbalaan bay waxayna siinayaan marka link halkaan marka waxa ka fiirinaysa view sales page palette view sales page ka waxa weeye waxaad eegaysaa alaabtan page-ki sales page-ka ahaa ama dadka marka dadka aan rabno inaan la wadaagno markaan la wadaagno page-ka u horeeya arkayaan oo alaabta lagu iibinayay softwareska ama alaabaha badanaa digital productska waxa iibiya sales page ka iibiya qof ma iibiyo qof salesman oo meel fadhiyo u tagaymis laakiin bogaan oo kala imaanaysa bogaan oo kala marka dadkii wax ka iibinaya ama landing page okay halkaan marka alaabta waatan marka xogteeda dhan halkaan ka akhrisanaysa hadhow marka rabna inaan haysiin u sameeyno alaabtan waxaan eegi doonaa xogtan macluumaadkan aan isticmaali doonaa macluumaadkaas aan ugu filan marka sales page-ka oo la iska fiiriyo alaab waxaa soo aragtay sida loo codsado iyo sida sales page-kana sida la isaga fiiriyo waxaan fiirinay Pinterest-ka fiirinay xogtooda macluumaadka kadib alaabta waa codsan ama xayawaanka ku xiga sida loo codsado alaabta suuqa waa sameeyna marka qodobka u dambeeyay sida loo codsado alaabta aad suuqeynayso waxaan filayaa inaad aad u fahanteen mawduucan wixii markay la soo codsadaan markaan aqbalaan oo kale sida linkiga loo qaato iyo sida loo sii promote gareeyo sida loogu sameeyo loo suuqeeyo intaasna muuqaalo kale ayaan ka sameyn doonaa laakiin maanta mawduuceena ama cinwaankeenu muuqaalkan wuxuu ku saabsanaa sida account looga furto JVZoo loona doorto alaab aad suuqeyso waxaan filayaa inaad waxa way aad fahanteen way mahadsantihiin mawduucan iyo mawduucyada la midka sida business online-ka iyo waxyaabaha sida loo sameeyo online-ka lacag looga sameeyo haddii aad danaynayso nagu soo biir channel-ka subscribe saaro muuqaalkana like gareeya haddii aad ka heshay si ay dad kale u gaarto tiro badan sidoo kale haddii aad danaynayso buugayga hoos baad ka iibsan kartaa description-ka muuqaaladeeda kalena soo daawo si aad u fahanto waxa aan meesha ku hayno waan islaamaya